madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa cunaha ku dhagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana war culus iyo digniin wada socdo ay u soo direen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii ugu dambeeyay seefta madaxdan waa ay siibnad si gaar ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ku sugan wasaaradda gaashaandhigga ciidankii 12 Abriil maanta u dabaaldegayay sanad guuradii 66aad ayaa warqad bogo ka xanuujisay isla markaana calool xanuun ku furtay waxa soo saaray madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Farmaajo hadda warqadan dhigaalkeeda nooceeb u ahaa sidays u qorayd maxaa ka jira wararka qaar ee sheegaya in warqadan ay tahay dacwad furan oo laga gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku eegaynaa warbixintan gaarka oo aan ku dul istaagayna Xasan Sheekh muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu wajahayay xaalad culus oo aan inaba caadi ahayn maanta laftirkiisa waxba ma uusan yareysan isagoo oo cadow ku tilmaamay mucaaradka waxaan ku hayaa Xasan Sheekh Maxamuud dabaaldega 12 Abriil ee ciidanka uu ka qayb galay sideeba loo xusay waxa la arkay diyaaradaha F16 oo cirka isu shareeray rajo iyo diila ayaana galeysay dadka qaar ee dhiiga Soomaalinimada wali uu ku jiro bal ila arag markii diyaaraduhu ay cirka galeen ciidankii salaanta siinayeen madaxweynaha dabaabaadku halka ay marayeen warbaahintuna ay muuqaalada duubays bal ila eeg mudane madaxweyne sanad guuradii 66aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa diyaar u ah inay maraan noocyada ciidamada kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne هذا مناسبة ستوس أيان أتجينا وحنا كاغا سو ورمي دونا سير مانتا وحو دعان ديارadaha gaarka ah waxa ay yihiin iyo khudbada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaas ka jeediyay oo dhameystiran mana ilaawi doona warka Sheekh Shariif iyo Farmaajo ee madaxweyne Maxamed aan raahday ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku wajahan qodobadaas oo dhan ayaan isla eegaynaa qaybta hoose ee faalada nagu reeb aragtidaada muuqaalka like saar subscribe na soo dhaw waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabayaa qoraal si wada jir ay u soo saareen madaxdii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu dhaleecayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo war saxaafadeed soo saaray oo ka hadlay maalinka xuska 12 Abriil oo markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu hambaliyay ciidanka wuxuuna digniin u diray isla ciidamada iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeyn Shariif ayaa geesiyaasha xoogga dalka ugu hambaliyay sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda isagoo oo sheegay inay ahayd maalin weyn oo qiimo leh isla markaana ay tahay in la xuso waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa buu yiri sareeyayaasha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskooda oo u dabaaldegaya munaasabada 12 Abriil oo ku beegan 66 sano ka hor markii la aasaasay ciidanka sida uu sheegay madaxweyne Sheekh Shariif sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in munaasabadan lagu soo aadiyay xilli xasaasi ama ay ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay markaasi taagan yihiin xaalado adag ayna socdaan howlgallo ka dhana kooxaha argagixiso wali bogaadintii wadaa eeda iyo dhaliisha ciidanka Xasan Sheekh uu jeedinayaba oo ay harsan tahay munaasabadan waxay ku soo aaday buu yiri xilli dalkeena ay ka jiraan duruufo adag isla markaana qaar ka mid ah geesiyaasha ciidanka xoogga dalka ay ku sugan yihiin furimaha hore ee dagaalka kuwaas oo naftooda u horay difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan anigoo ka faa'iideysanaya fursadan bogaadinaya ciidanka qalabka sida noocyadooda kala duwan inay si laba jibaaraan dagaalka lagula jiro argagixisada ayuu yiri dhanka kale madaxweynihii hore oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ciidamada isagoo ugu digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda waxa uu ugu muhiimsan ee qodobkiisa ah ee laga dhadhansanay waxa uu yiri ha ku milmina siyaasadda Xasan idin male Farmaajo idin male anigu idin malihi Soomaali baatiin wixii aad ku dhaarateen ilaaliya ayuu Sacad u yiri Shariif ayaa carab ku dhuftay in arintani ay dhaawacayso sumcadda ciidamada iyo dhexdooda wixii ka jiraba isla markaana ay wax u dhimayso kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan haddii ciidanku ay ku milmaan waliba arrimihii baydhabo iyo siyaasadihii loo adeegsaday ciidanka ayuu soo hadal qaaday waxay u muuqataa in hoggaanka dalka uu kala qaybinayo ciidamada qaranka isaga oo kale dana siyaasadeed oo gaar halkaas wad arkaysaa Xasan Sheekh baa lagu galay halkaas oo lagu duraya waliba
waxa uu yiri waxay u muuqataa in hogaanka wadanka taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida waaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda qofka muwaadinka koowaad waaya waa xasan sheekh madaxweynaha markaas joogo ayaa muwaadinka koowaad isaga taliyaha guud ee ciidanka ah nooc kasta oo ay yihiin indhaha fur halkaas buu ka hadlayaa ninka la yiraahdo Shariif Farmaajona waa la mid isaguna qoraalkiisa oo sidaaba u hadlay waxay u muuqataa in hogaanka dalka uu kala qaybinayo ciidanka isaga oo kala dana siyaasadeed oo gaar ah waxaanan uga digayaa saraakiisha ciidanka qaadashada amar qaldan oo dhaawici kara dhexdhexaadnimadooda iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan lama hadlin alifleyda dableyda iyo ragga hooseeya ee wuxuu la hadlay saraakiisha waxgalka ee diidi kara awaamirta qaldan qaarkood waxana uu sheegay in dhexdhexaadnimadooda ay ilaaliyaan oo mucaarad iyo muxaafid adsam ay u noqdaan sidaas ayuu ka hadlay madaxweyne Sheekh Shariif digniinta waxay ku soo aaday xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay howlgal culus ku qaaday deegaanada koonfur galbeed kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ay gudaha u galeen magaalada Baydhabo iyadoo oo kadib meesha laga saaray maamulkii lafta gareen waliba awood ciidan looga saaray Sheekh Shariif marka wuxuu sameeyay liir waxay ciyaalka xaafadu yiraahdaan tubaraac caadi ayuu u tubaraacay isagoo oo markaas wixii dhacay dhaliishooda dusha u saareeya madaxweyne Xasan Maxamuud isla markaana oranaya wixii aad ka sameeyeen Baydhabo ma ahayn wax lagu qanco lagu farxo ama qurxoon dabcan sida hadalkiisa laga dheehan karo hadalka madaxda ka soo baxay waa isku mid waa Shariif iyo Farmaajo sidee baad u aragtaa adiga toos waxaan u tageynaa marka wasaaradda gaashaandhigga iyo wixii maanta dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay xuska 66aad ee sanad guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidan aad u badan oo leh tayo sare sidoo kale ku qalabeysan gaadiid dagaal oo gaashaaman iyo diyaarado dagaal oo kuwa casri ah kuwaas oo hawada sare ee Muqdisho lagu arkayaba tan iyo saakay sida xogtu ay leedahay arintan waxay muujinaysaa sida loo diyaariyay awoodda qalabka iyo tayada ciidanka xoogga dalka oo sanadihii la soo dhaafay gaaray guulo waaweyn laguna xareeyay dhul ay muddo dheer markaas ama lagu xoreeyay aan dhahday dhul ay muddo dheer argagixisado ku dhibaateynaysay shacabka Soomaaliyeed sida wararku ay leeyihiin madaxweynaha oo madasha kula hadlay geesiyaasha xoogga dalka ayaa ugu hambaliyay sanad guurada 66aad ee ka soo wareegatay aasaaskooda isaga oo sheegay inuu rajeynayo barwaaqo iyo sidoo kale horumar madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu suntan adkaysi ama kuwa ku suntan adkaysi isla markaana ay guul weyn maanta u tahay dabaaldega sanad guurada 66aad ee aasaaskooda isaguna ay farxad galinayso sida uu hadalka u dhigay Xasan Sheekh geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa markaasi badbaadiyay 20 milyan oo Soomaaliyeed kaliya kuma difaacaan qori balse sidoo kale way u gargaaraan maanta guusha ay gaareen taariikhda ayaa qori doonto hambalyo ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Professor Xasan Maxamuud sidoo kale wuxuu ka hadlay sida dawladdiisu ay uga go'an tahay in cadawga laga xoreeyo goobaha ay ka joogaan dalka maadaama ay socdaan howlgallo xoreyn 12 Abriil sanadii 1960 ay ahayd markii ciidanka xoogga dalka la aasaasay oo Soomaaliya ay yeelatay waa sanadkii aanu xorriyadda qaadanay waxaana hadda laga joogaa 66 sanadood iyada oo sanadkaasi markaasi ama sanadkan ay ku soo aaday xilli muhiim ah oo uu soo kabanayo militariga Soomaaliya isla markaana ay helayaan tayo tababaro qalab ciidan iyo sidoo kale dib u soo habeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka kooban qaybo badan oo kala duwan ciidamo isbishaal ah kuwa howlgallo qaas fuliya ciidanka cirka kuwa lugta kuwa markaasi badda iyo kuwa markaasi special force la yiraahdo ee howlgallada adag ee birta culus ama jugta culus fuliya waxaana ciidanka dhamaantood maanta ay soo bandhigeen markaasi tayadooda iyadoo oo salaan ay la hormarayeen madaxda qaranka ee halkaasi ku sugan General Ibrahim Maxamed Muxidiin taliyaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ama xoogga dalka ayaa munaasabadan wasaaradda gaashaandhigga joog ah sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Axmed Macallin Fiqi ayaa joogay gudoomiyaha gobolka Banaadir
ahna duqa muqdisho oo horey isagu laftirkiisa ciidamada kaga soo shaqeeyay gaar ahaan maxkamadda ayaa isaguna joogay. waa generaal maxamed aan idhaahda generaal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaano mungab. saraakiil kale oo ciidan ayaa maanta la dalacsiiyey oo darajooyin ku mutaystay markaasi shaqadii qaranka ee loo igmaday sidii wanaagsaneed ay uga soo baxeen. toos ayaan u tagaynaa munaasabadda madaxweyne xashi maxamuud iyo hadal jeedintiisa ayaan kugu xirayaa. marka hore ila daawo saaxiib channelka subscribe soo dhe, muuqaalka like saar, una sii share garee saaxiibadaada. hambalyana dhe ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed oo 66 sano jirsaday. muxuu ahaa aan usoo xarig shahay yani laababdan oo meelaha oo digital systemka ciidanka ka shaqeeya ayaa qayb ka mid ah yaa jooga. hogaanka siyaasiyiinta waxaa hoos jooga qayb dhan oo digitalka systemka ciidanka iyo digitalizationkiisa maaha communicationka keliya laakiin wax walba in la digital la geliya ka shaqaysa. maalinna waxaan soo marnay ciidanka xusuus qorka ninka taliyaha ee joogo inta ku wato ay ku qoran yihiin wixiisoo dhanba. maalinba meelaan soo joognay nimankii xusuus qorka maalintay wateen ciidanka dhex taagnayna sharaf iyo ammaan iyo karaamay leeyihiin. ciidankan wax looma haayo mana dhamma wuxuu u baahnaa ina ma haysto ciidanna ma noqon karo. maalintaas hadday dhihi lahaayeen maanaan soo gaarnay maanta meesha aan joogno. waxaan u soo gaarnay meeshaas laga soo bilaabo iyo intii ka dambeysay ee qor isuliibka ay ahayd ee meeshaan lagu soo gaaray. dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dowladi ma jiri karto ciidan la-aan. dowladi dimuqraadi ma noqon karto ciidan la-aan. dowladi horumar iyo investment iyo dhismo ma heli karto ciidan la-aan. mid kasta oo waxaas wanaagga ah oo dowladnimada horumarka maslaxadda ummadda nin kasta oo caqabad yar u dhigayahay waa cadow. cadowgana in laska qabto u baahan yahay. cidda u carbisan oo u qaabaysan oo u qalabaysan waa guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. weliba markii wax weyn oo culays badan oo booliiska iyo waxa iyo ka tambata markay yimaadaan nimanka cadow waa ayaga. cadowga dibadda ayay u dhisan yihiin inay difaacaan laakiin cadow waa cadow. kii ku dilaya waa cadow, kii horumarka ku diidaya waa cadow, kii ku cabsi gelinaya. maanta magaalada muqdisho alxamdulilah ilaahay ayaa mahaddeeda iskale. guud ahaan ciidanka amniga ciidanka qalabka sida oo dhan yaa iskale. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ciidanka nabadsugidiisa dhammaan ciidanka asud dhammaan waa la isugu tegay amniga caasimadda in la sugo. waa laga wada shaqeeyey. quruxda markii la wada shaqeeyo quruxda ma dhalato waa. dhammaan marka la wada shaqeeyo ee ciidamadu isu wada tagaan oo hal xarun oo howlgalka laga hogaamiyo amniga ay samaystaan oo ay xoogaga isu geeyaan oo fikirka iyo talada isu geeyaan oo ay qalabka wixii qalab ay haystaan isu geystaan quruxda maanta magaalada muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa. quruxda maanta magaalada muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa. waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed ha garab istaagaano guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta aan munaasabadoodii aan joogno. meel walba cadowga dibadda maanta niman khawaarij la yiraahdo oo la yaqaano mabaadida ay ku salaysan yihiin oo Soomaali ah badankood oo la qalloociyey. Soomaaliya ha qalloociso ama ajnabi ha qalloociyey oo noo soo dhex maro cadowga ajnabiga ah ee aan toos noo soo weerari karin xataa ayaga uu noo soo dhex maro oo kan maxaan ku yidhaahdaa in dowladda
laxagal daaciya rabaa uu soo dhex maro kan dhaqaalaha in dadka soomaaliya lagala diro uu soo dhex maro kalsoonida dadka inay lunto oo qofka soomaaliga isku kalsoonaa waayo oo hadduu gurigiisa joogana cabsado hadduu waddada marayana uu cabsado haddii sii socdana uu cabsado hadduu soo socdana uu cabsado kuwa sababaya waa cadow aad iyo aad u xun waay aad iyo aad u xun waay kuwa u hortaagan ee ku dhintay ee tira aan yarayn weliba muxuu ahay ay ka shahiiday waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwa aan maanta soo dhagax dhignay shuhaadadaas ilmahoodii agoonta ahaa sidii loo xanaanay lahaa waa kuwa dowladdu maanta ay u dejisay qawaaniin iyo xeerar u samaysay ee kuwa naafada ku noqday halganka noocaas ahay xuquuq inay helaan iyo nolol fiican inay ku noolaadaan ee dowladdu ma aha xasan sheekhaa jecelo maanta muxuu garab istaagaya ama taliyaha maanta yaa jecelo garab istaagaya ma aha qawaaniin dalku uu leeyahay in loo dejiyo oo waajib uga dhigaysaa qof kasta oo talada yimaado ama taliskan ha yimaado ama wasaaradda gaashaandhigga ha yimaado ama dalka ha yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda ha noqdo waajib ka dhigaayo in agoonta ciidamada la garab istaago waajib ka dhigaayo dadka dalka u naafoobay ee jirkooda xubno kamida u waayey in si buuxda loo garab istaagay inta ay nool yihiin hadba intii dowladdu awooddooda ay la eg tahay shalay lama soo hadal qaadaynin lama necbayn awooddeenna inta la ekeed ma lahayn awood aan ku soo xasuusanno maan leyn maanta xogaa awooddooniya kor usoo kacday waa soo xasuusanay waxaan leenahay ma ka gaarnaa dhammaantood maan ka gaarnaa intii aan ka gaarno maan yaan dhaqaaji karnaa waxaadan wada qaba karin lagama wada tagaa la dhaha haddaanan agoonta xoogga dalka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalada iyo difaaca dalka ku naafo oo dhan haddaanan waxay mudnaayeen aanan wadageli karin intii aan ka gaarno sanadkan haddaan 100 ka gaarno sanadka daba 100 kale ku darno sanadka ka dambeeya 1,000 ku darno kan ku sii xiga aan wada dhammaystirno waa wax weyn wax kasta bilaabay leeyihiin wax kasta oo bilowda oo curtana waa koraan sunnada nolosha adduunyada ka mid tahay marka waa urinay maanta in loo istaago agoontii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadkii u naafoobay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muxuu ahay u naafoobay dalka difaaciisa ma aha kuwa kale ee booliis leh maxaan ku nabad sugid leh asluub leh in la iloobaya maya maalintoodii iyo meeshooda iyo maqaamkooda ayay agoonta booliiska soomaaliyeed waa leedahay kuwa nabad sugidda waa yeelan doonaan dhammaan muxuu ahay waa loo yahay qof kasta oo dalkan difaacay sharaf iyo karaamo inuu ka helaan rabnaa asagu haddii ay tiisi timaadana ilmihiisu ay ka helaan oo ay ka tilmaanaadaan ilmaha kale haddii ala yidhaah waa ka shaqeynayna taas waxaa soo haray sidaad og tihiin mucaawanooyin badanaa dalalka sideen oo kale iyo guud ahaan dalalka africa mucaawanooyin badanaa la siiyaa caalamka u siiya si gaargaar ah oo bilateral laba dowladoodna waa loo siiyaa hay-ada caalamigana waa siiya hay-adaha caalamiga kow inta badan military ma kaalmeeyaan sidooda wadamo gaar ahoo maxaan ku rahdaa dee labada dowladood ay isla fahmeen oo ayaa kaalmeeya wadamadaas gaarka ah ee na kaalmeeyo halkaana wasiirku uu ka sheegay waa u mahad celinaynaa waa xuseennaa